kulanti wacan daawada ku soo dhawow qaybta labaad ee afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. qaybta koowaad waxay noo joogtay macluumaad kooban oo ku saabsan Hakan Fidan, taliyihii hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee dalkaasi Turkiga oo ahaa shakhsigii badbaadiyay kursiga madaxweyne Erdogan. macluumaadyo kooban oo ku saabsan isaga iyo dagaalkii dhex maray dowladaha Mareykanka iyo sirdoonka Mossad iyo macluumaad kale ayaa buugga qayb ka ah. laakiin sidaan hore idinkugu sheegay macluumaadka afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga waxa uu noqon doonaa mid aan soo koobaya in badan, taas oo macluumaad dheeri ah iyo xogaha dhanka sirdoonka ee buuggaani ku guda jira aad dib kaga heli karta buuggan adigoo ka iibsanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka. haddii aad ku sugan tahay dibaddana waxaan filayaa inaad ka heli doontid bogga Amazon oo aad ka heli doontid macluumaadka dheeriga ah ee buuggan uu xambaarsan yahay. waxaa tarjumay Kamaal Axmed Cali. qaybta labaadna waxaan ku eegi doonaa dib u habeyntii sirdoonka Turkiga. sida ku cad warbixinada kala duwan ee aynu ku salaynay xogta buuggan uu xambaarsan yahay, Hakan Fidan waxa uu ku guuleystay in dib u habeen iyo casriyeyn aad u tayo badan uu ku sameeyo sirdoonkii dalka Turkiga oo markii uu yimid habac badani uu ka jiray, aadna u kala daadsanaa, isla markaana khilaaf iyo loolan adag uu ka dhex jiray. waxaan uu gaarsiiyay heerka maanta ee hay'addaasi ay joogto oo lagu tiriyo mid ka mid ah sirdoonada ugu awoodda badan dunida oo dhan. laakiin horumarka iyo dhismaha uu wakaaladan Hakan Fidan uu ku sameeyay waxa uu u beeray cadow badan oo dibadda ah, Israa'iil iyo Mareykankuna ay ugu horeeyaan, iyo mid gudaha ka imaanaya shakhsiyaad iyo ururo badan oo kooxaha maafiyada iyo ganacsatada kontrabanka oo arkayay in danahoodii shakhsiga ahaa iyo dilalka hubka iyo daroogada wakaaladani ee Hakan Fidan hortii ay caanka ay ku ahayd ay meeshay ka baxayaan. Hakan oo dabcan xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee Erdogan xubin ka ahi waxa uu soo jeediyay qorshe si loo qaadan waayay oo uu ugu qanciyay Recep Tayyip Erdogan oo ahaa in dhammaan wakaaladaha sirdoonka iyo arrimaha amniga dibadda ka shaqeeya la hoos keeno sirdoonka guud ahaan ee qaranka oo ah wakaaladda uu isagu u maamulayay. taasi waxay sababtay in dhammaan wakaaladaha sirdoonka dibadda iyo amniga gudaha sirdoonka militariga gacantiisa ay hoos yimaadaan. waxa arrintaani ay mar kale ay ka careysiisay Israa'iil iyo reer galbeedka oo iskaashi dhinaca militariga iyo amniga oo adag la lahaa dalka Turkiga. inkastoo xiriir adag oo kalsooni badan ku dhisnaa ay sameysteen Erdogan iyo Hakan Fidan, haddana waxaa Erdogan uu qaadan waa ku noqotay sanadkii 2015 markii Hakan Fidan uu si kedis ah isaga casilay agaasimihii awoodda badan ee sirdoonka Turkiga si uu ugu beedho dhinaca siyaasadda oo uu doonayo inuu isu soo sharaxo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Turkiga. arrintan Erdogan aad ayuu uga goos adeegay, sida uu ugu xumaadayna maba uu qarsan oo hadaladii uu ku yiri waxaa ka mid ahaa mid uu ku sheegaya in sababta xilkan ugu magacaabay uu yahay inuu ku qanacsanaa kartidiisa iyo sida ay ugu habboon tahay inuu wakaaladan si awood iyo qadarin leh uu u maamulo. Erdogan waxa uu si cad u sheegay in Hakan Fidan ay tahay inaanu ka tegin wakaaladan oo aanu siyaasad doonan. dadkii xilligan xoog ogaalka ahaa iyo dadka siyaasadda Turkiga gorfeeya waxay bariga ay sheegeen in isku dhajinta Erdogan uu sii deyn la'yahay Hakan Fidan ay muujinayso sida aan ugu maarmi karin ninkaas, gaar ahaan dhinaca amniga iyo xasilinta dalka. ugu yaraan waqtigaasi la joogay oo ay jireen qatarro ka imaanayay dagaalada joogtada ee Turkiga uu kula jiray xisbiga shaqaalaha ee Kurdiyiinta, loolankii u dhaxeeyay xukuumadda Erdogan iyo jaamacadda ay xulka ay yihiin ee Hizmat, iyo weliba qaraxyada ku soo kordhaya gudaha dalka Turkiga. Erdogan oo xilligaas qarsan kari waayay jaceylka uu qabo Hakan Fidan uu xilkaasi sirdoonka uu sii hayo, hadaladii uu yiri waxaa kale oo ka mid ahaa haddii wakaaladda sirdoonka dowladda ay daciif ay noqoto, suurtagal noqon maysa in dowladda si adag cagaheeda isu taagto. waxay arrimahaas oo dhan ay muujinayaan jaceylkii saaxiibtinimo ee guud ahaan iyo gaar ahaanba u dhexeeya Hakan Fidan iyo madaxweyne Erdogan. macluumaadyada kale aan eegno. inkastoo aan hore u soo xusnay in dareen shaki leh ay Israa'iil iyo Mareykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ahba ay ku qaabileen Hakan ama Hakan Fidan, haddana runtu waxa ay tahay in ugu dambeyntii ay qasab ay ku noqoto in lala shaqeeyo, maadaama aan la dhaafi karin kaalintiisa sirdoonka ee dalka Turkiga iyo guud ahaan siyaasadda dalkaasi uu ku leeyahay bariga dhexe, iyo muhiimadiisa istaraatiijiyadda iyo sidoo kale doorka firfircoon ee Turkiga uu ku leeyahay gaashaanbuurta NATO. waxyaabaha dhinacyadaasi ku qasbaya inay la shaqaynta sii wadaan, xitaa mararka qaarkoodna u hadlaan sida inay ku qanceen Hakan. marka aan hoos ugu sii dhaadhacno,
waxaa ka mid ahaa shaqooyinka yaabka lahaa ee sirdoonka dalka Turkiga uu Hakan hogaaminayo ay ka wadeen gobolka. Tusaale ahaan, Hakan Fidan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ninka iska lahaa fikirkii ahaa in xalka kaliya arrinta Suuriya lagu dhamayn karaa uu yahay in hub casri ah la siiyo mucaaradka qunyar socodka lagu tilmaamo ee Suuriya. Fikirkaas oo inkastoo aanu sidii la rabay u shaqayn, haddana la aaminsan yahay inuu si weyn u daciifiyo awoodda taliska Bashar al-Assad, reer galbeedkuna u arkeen inuu yahay fikir shaqayn kara. Hakan Fidan oo sida ka muuqata ka duulaya aragtida oo bilowgiiba ku saleeyay dib u habeynta sirdoonka Turkiga ee ahayd in sirdoonadii tirada badnaa ee Turkiga lagu soo koobo laba u dhisan qaabka sirdoonka Mareykanka oo ah in wakaaladii u gaar ay u ahaato arrimaha gudaha iyo amniga iyo sidoo kale dambi baadhisyada. Wakaalada kale oo ah tan isaga uu hogaaminayaana ay la mid noqoto wakaalada CIA oo iyada loo daba fariista arrimaha dibadda. waxaa ka dhashay sababtii uu bilowgiiba sidaas u yeelo oo ah in wakaalada kaliya ee sirdoonka kaysanaysa in la xoojiyo joogitaanka sirdoonka Turkiga uu ku leeyahay gobolada colaadaha iyo xiisadaha siyaasiga ay ka jiraan sida bariga dhexe, dalalka dariska la ah Turkiga ee Ruushka, gobolka Qowqaas iyo guud ahaan qaaradda Asia, qaaradda Afrika iyo xitaa labada Ameerika, Yurub iyo Israa'iil, lana hirgeliyo baahiyaha Turkiga ee ka imaanaya koritaanka dalkaasi uu sameynayo. Hakan Fidan oo markaan shaqadiisa ay noqoto nin dhiiran oo go'aamo cadcad, aragtidiisa hubaynta mucaaradka ee Suuriya fikir kuma uu deynin oo durbadiiba sanadkii 2011 wuxuu bilaabay inuu xoojiyo awooddii militari ee mucaaradka Suuriya isaga oo ogolaaday in hubka, lacagta iyo sidoo kale caawimooyinka sahayda iyo saanada militariga u socda mucaaradka ay soo maraan dalkiisa si ay ugu gudbaan xuduudda uu la leeyahay dalka Suuriya. Hakan Fidan door weyn ayuu ku lahaa arrimaha dalka Syria. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan arrimihiisa sirdoonka, qaabkii uu dhaqaalaha iyo hubka uu uga gudbin jiray dhanka xuduudda iyo arrimo kale iyo macluumaadyo kale oo dheeri ahba waxaad ka heli kartaa page-ka 29aad, page-ka 30aad iyo page-ka 31aad ee buugga afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Markaana aan eegno shirqoolkii gudaha. Isku dayga afgambi ee dalka Turkiga ka dhacay wajigiisa gudaha Turkiga ku koobnaa oo ah fulinta iyo qorsheynta qaybaheeda ugu muhiimsan waxaa fuliyo cutubyo ka tirsan ciidanka militariga ee dalka Turkiga kuwaas oo ku socda qorshe uu dejiyay General Muharram Kusi oo ahaa la taliyaha dhinaca sharciga ee taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. fulinta qorshahana waxaa lahaa General Akan Osturki oo hore u ahaan jiray taliyaha guud ee ciidamada cirka, gacantana ka helaya generaalo kale oo ay ka mid yihiin General Bakar Kojak, taliyaha guutada 55aad ee ciidamada lugta, Admiral Khalil Ibrahim Yildiz, taliyaha ciidamada badda iyo bariga ee gobolka Izmir, General Yonis Moutoman, taliyaha guutada 49aad ee commandoska ee gobolka Bengol, Admiral Hakan Austam oo ah admiraal boolis ah oo taliye u ahaa ciidamada ilaalada xeebaha, General Akram Kaqaler, taliyaha ciidamada Turkiga ee gobolka Izmir, taliyaha guud ee ciidamada saddexaad iyo sidoo kale generaalo kale iyo saraakiil darajada dhexe iyo saraba lahaa. kuwaas ayuu ka helayay fursado iyo qaabab kale oo ay ku hirgelin karaan fulinta qorshaha arrimaha gudaha ee afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Markana aan eegno farsamayaqaanadii afgambiga. Korneel Muharram Kowsa waxa uu xubin uu ka ahaa ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga xilligii afgambigii fashilmayna waxa uu ahaa la taliyaha sharciga ee taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. waxa uu ku eedeysan yahay in isagu uu hogaaminayo isla markaana uu ahaa maskaxda runta ah ee soo naqshadaysa farsamadii afgambiga, isla markaana waxay xukuumadda Turkiga aaminsan tahay inuu yahay ninkii lahaa fikirkii ay ciidamadu sheegeen xilligii ay moodayeen in afgambigoodii uu guuleystay ee ahaa in dalku si ku meel gaar ah uu u sii maamuli doono golo sare oo lagu magacaabo golaha nabadgelyada. dad badan oo xog ogaal ahna waxa ay la tahay in Kowsa oo si aad isugu dhow yihiin wadaadka Mareykanka degan ee Fathullah Gulen oo xukuumadda Turkiga ay ku doodayso inuu ku lug lahaa afgambiga sida aynu xogta dambe aynu ku arki doono. Muharram Kowsa sanadkii 2003 ayaa lagu eedeeyay inuu waday qorshe uu ku afgambinayo xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee Recep Tayyip Erdogan oo markaasi muddo bilo uun dalkaasi hogaaminayay. kadib doorashooyinkii dhacay horaantii sanadkii 2003 oo xisbigu uu ku soo baxay, sidoo kale waxaa lagu eedeeyay xilligaas inuu doonayo inuu dilo Bülent Arınç oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalka Turkiga. Muharram Kowsa waxa uu qorshihiisa ku bilaabay in marka ugu horeysa xabsiga la dhigo Khaluza Akar oo ahaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida,
Kowsa waa waaya arag oo aan dhayal maskaxda looga qabsan karin, laakiin markaan taagdarro tirsanaya maadaama oo raggii uu ka agdhawaa ay gacanyarayaashiisa ay ku jireen goor horeba qorshaha afgambiga lagu qanciyey. waxa uu Kowsa qorsheeyay in Aakaar marka la afduuba lagu qasbo inuu saxiixo war murtiyadeedka koowaad ee lagu shaacinayo in taladii ay ciidamada militariga ay la wareegeen, iyagoo adeegsanaya marka hore in lagu qanciyo in isagu uu dalka hogaamin doono, haddiise uu ku qanci waayo noloshiisa khatar la geliyo si loo tusiyo in uu nolosha uu ku bedesho saxiixa war murtiyadeedka afgambiga. waxaa qorshaha ka mid ahaa in ciidan 200 oo askari ah oo kooxdan afgambiga dhigto gudaha dhismaha taliska guud ee ciidanka militariga Turkiga si ay uga hortagaan in cid kasta oo iyaga aan taageersanayn ay qabsato oo amarro ka duwan kuwa ay rabaan ay ka soo dirto qalabka war isgaarsiinta ee taliska guud. wakaalada wararka ee Turkiga oo baahisay hadalladan uu generaalku uga jawaabay baarayaasha xir ilaalinta dalka Turkiga ee afgambiga baarayay, waxa ay sheegtay in Khaluuso uu qirtay inuu ku fashilmay dhowr isku day uu doonayay in generaalada afgambiga waday uu ku qanciyo inay joojiyaan afgambiga, isaga oo ka waramaya aakhirkii markii lagu wargeliyay in qorshihii afgambiga furitaankiisii socdaana waxa uu yiri Generaal Maxamed Dayshli oo ka mid ahaa ragga afgambiga fashilmay ku lug lahaa ayaa ii soo sheegay in cutubkii koowaad ee ciidamada afgambiga fulinayay ee howlgaleen, marka wixii ka dambeeyayna ay qaban doonaan cid kasta oo ka hortimaada taladooda. Khaluusa Aakaar waxa uu sheegay in mar kale uu u digay Dayshli laakiin ay iska dhiga adeegay wax walba. arrinta xiisaha leh waxay tahay in Generaal Maxamed Dayshli oo hadda xabsiga ku jira kuna eedeysan inuu afduubay taliyaha ciidamada qalabka sida isla markaana uu afgambiga qayb ka ahaa ay walaalo ay yihiin Shacbaan Dayshli oo ah ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee talada dalka Turkiga haya, oo ah dabcan xisbiga uu madaxweyne Erdogan la afgambiyo hogaamiyo. inkastoo uu Shacbaan soo saaray war rasmi ah oo isaga fogeynaya ficilada uu walaalkii ku kacay qoraalkiisiina waxa uu ku yiri hogaamiyahaygu anigu waa Rajab Tayyip Erdogan, isaga ayaan taageersanahay, walaal kasta oo aan la dhashay waxba kama bedeli karo arrintaas. si kastaba haatee Generaal Dayshli xir ilaalinta dacwadiisa baaraysa waxa uu ka diiday inuu wax xiriir ah u leeyahay Fatxullaahi Gulaan, isagoo ku andacooday in isaga qudhiisa uu dhibano u yahay oo qasab generaalada afgambiga ay ku howlgeliyeen, iyaguna ay u sheegeen inay dili doonaan ama xabsi ay dhigi doonaan haddii uu ka hor yimaado amarkooda, taasina ay ku qasabtay inuu qayb ka noqdo afgambiga. inta badan xaaladaha afgambiga waxyaabaha caqabadaha noqda waxaa ka mid ah war isgaarsiinta, waana halka uu marar badan qorshahu uu ka fashilmo maadaama ay dhici karto inay kala xiriir furmaan dhinacyada qorshaha afgambiga fulinaya, taasi oo keenta in waqtiga qorshaha uu ku socdo isweydaaro ama marka xiriirku uu go'ay ragga qaarkii ee iyagu ay ismaamulaan oo ay qaataan go'aamo lafajab ku noqon karaya qorshaha socda. sida muuqatana kooxda afgambiga Turkiga waday taas qudheedana xisaabta ayaa ay si fiican uga darsadeen xilligii ay qorsheynayeen, waxaana ay ku fikireen in hab casri ah isgaarsiintooda ay noqoto, inkastoo oo si uun ay u ildoofeen in war isgaarsiinta ee taleefanada casriga ah loo adeegsado ay inta badan ay yihiin kuwa siyaabo fudud loo dhexgeli karo. taliyaasha afgambigu waxa ay barnaamijka WhatsApp-ka ay samaysteen koox xidhiidh ah halkaas oo ay qorsheeyeen in lagu wadaago amarada hadba caqabadaha cusub iyo xalka iyo talada u baahan iyo guud ahaan habsami u socodka howlgalka afgambiga. Al-Jazeera oo mar kale hesha qaar ka mid ah fariimaha ay saacadihii ugu horreeyay isku dayga afgambiga WhatsApp-ka isku weydaarsanayeen taliyaasha afgambiga ayaa baahisay tafaasiil iyo waajibaadka hogaamiyaasha afgambiga. sida fariimahaasi ka muuqatana qorshaha fulinta waxay ahayd 3 habeenimo ee saacadda Turkiga, laakiin waxaa soo dedejiyay arrinta ilaa hadda si buuxda aan loo garanaynin, balse la filayo in uu ahaa cabsi ka yimid qorshaha ay ka baqeen kooxda afgambigu inuu baxay ama dhaqdhaqaaq ka dhan ah howlgalkooda oo ay dareemeen. fariimahaasi waxa ay muujiyaan daldalooyinka afgambiga qorsheyntiisa ay ka mid ahayd booliiska oo aan si awood ah loogu soo darin afgambiga. waxaa suurtagal ah in sababaha booliiska ay isaga reebeen ay tahay in iyaga oo og xiriirka muddooyinka dambe sii fiicnaanayay xukuumadda Erdogan iyo booliiska oo la aaminsan yahay in rag badan ee xisbiga talada haya la socda lagu soo daray hogaankooda sare. fariimaha la isdhaafsadayna waxa ay muujiyeen in saacadu marka ay tahay 10 habeenimo ay ahayd in ciidamada afgambiga ay u dhaqaaqaan go'doominta gegida diyaaradaha ee Istanbul, laakiin iska caabin aanay filaynin ayay kala kulmeen ciidamo booliis ah oo joogay jidadka magaalada bartamaheeda ah iyo sidoo kale jidka gegida diyaaradaha ay u mari lahaayeen, waxaanay u muuqdeen inay tahay sababta keentay in diyaaradda madaxweyne Erdogan oo iyada isla gegida diyaaradaha Istanbul ku socotay ay nabad kaga soo fariisatay ciidamadii Erdogan taageersadaana ay ku sugnaayeen gudaha garoonka.
waxaa iska cad haddii kooxaha afgembiga caqabadaas aanay kala kulmi lahayn inay ugu horeyn ay geli lahaayeen garoonka, taasina ay noqon lahayd dhammaadka madaxweynenimada Erdogan. fariimaha la isdhaafsaday qaarkood waxa ay muujinayeen inay jiraan rag booliiska ka mid ah oo iyaguna diyaar u ahaa inay ku biiraan kooxaha afgembiga waday. waxaa sacad in qorshaha afgembiga isla saacadii uu bilowdayba la ogaaday. sida fariimaha ka muuqatayna taliyayaasha afgembiga oo aada isu madax marsan ayaa ciidamadooda ku amriyay in ay toogtaan cid kasta oo isku dayda inay ka hor yimaadaan, gaar ahaana ciidanka ammaanka. dhambaalada WhatsApp-ka waxaa lagu arkaya fariimo ay isugu sheegayeen mas-uuliyiinta afgembiga in caqabada ugu weyn ay hortaagani ay tahay taliyaha ciidamada koowaad Generaal Dondar oo keligii caqabad khatar ah noqday. sidaasi aaweedna waxay isfarayeen in xabsiga loo taxaabo, iyagoo isu sheegaya halka uu joogo in la garanayo, ciidamo ka tirsan afgembiga oo qaban karaana ay ka agdhow yihiin. waxaa kaloo isu sheegeen in mucaaradka afgembiga ee Generaal Dondar ay kala soo horjeeda aanay afka un ku koobneen, balse uu wado howlgallo fashilin ah oo ciidamada qaarkood uu kula xiriirayo si ay uga hor yimaadaan kooxaha afgembiga wada. waxaa xiise leh in siday isu sheegeen in mar Generaal Dondar uu ku sigtay inay qabtaan markii uu gudaha usoo galay bariijka ama buundada ciidamada ay xireen, laakiin markii uu 700 oo tallaabo u jiro ciidankii afgembiga uu isdareemay oo dhinac kale u baxsaday. fariimaha WhatsApp-ka waxaa mas-uuliyiinta sidoo kale isu sheegeen in tirada ciidamada howlgalka ay ku wada socdaan ay gaarayaan 20,000, iyaga oo sidoo kalena ay ku amreen in si dhaqso ah loo qabto dadkii la isku ogaa in la xidho, kuwaas oo aanan halkan lagu magacaabin. inkastoo taliyayaasha qaar magacyadooda lagu yeerayna oo weliba lagu amrayo in xoog ay ku galaan guryaha saraakiisha laga cabsi qabo inay afgembiga ay kasoo horjeestaan. fariimaha kooxda isdhaafsanaysa waxaa qaarkood ka muuqday inay cid awood badan oo ciidamada ka mid ahi ay qorshahooda afgembiga ah ay diidan tahay. mararka qaarkoodna waxaa la arkaya saraakiisha goobta oo taliyayaasha sarsare ka codsanaya in loo raadiyo farsamayaqaano jira kaamaradaha iyo qalabka kale ee wax lagu raadguro, oo ay ka baqayeen in ragga kasoo horjeeda ay kusoo beegsadaan. arrinta kale ee muujinaysa in kooxda afgembiga waday ay diyaar u ahaayeen in xitaa maalmo ay sii dagaalamaan ayaa sida fariimahan laga dheehanayo inay sii diyaarsadeen cidda ciidamadooda raashinka gaarsiinaysa 3 maalmood ee soo socota iyo habka ay ciidamada la socdaa oo dhan loo gaarsiin karo. waxaa fariimaha ka muuqda in saraakiisha afgembiga hogaaminaysa ay si fiican ula socdeen telefishinada oo hadba xogta ay helaan ay ku wargelinayeen saraakiisha goobaha ku sugan. tusaale ahaan markii hore waxaa ciidamada afgembiga ay xireen bariijka ama buundada gebi ahaanteed, laakiin markii dambe ayaa WhatsApp-ka loogu sheegay in telefishin uu sheegay in dad badan oo shicib ah ay buundada ay ku xaniban yihiin, sidaas awgeedna la farayo ciidamada in dadka caadiga ay sii daayaan, wixii booliis ama ciidan kale ana ay hubka ay ka dhigaan, haddii iska caabin ay kala kulmaan ay goobta ay ku dilaan. halka hay noo joogto qaybta labaad ee sheekada ama buugga ku saabsan afgembigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. macluumaadka buuggan aad ayaan u soo koobi doonaa, annagoo ujeedada aan ka leenahay ay tahay in dadka ay dib ay warbixinta iyo macluumaadka oo dhammaystiran ay kaga helaan buugga oo laga helayo gobolada kala duwan ee dalka. magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa iyo Muqdisho ayaad ka heli kartaa buuggan oo aad ka iibsan kartaa afgembigii dhicisoobay. waxaa kaloo aan filayaa inaad ka heli karta bogga Amazon ee dhanka online-ka wax lagu kala iibsado haddii aad ku sugan tahay dalka dibadiisa. qaybta 3 waxaan ku eegi doonaa shalay halyey maantana dhagar qabe. qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono maalinta Arbacada waxaan idinkaga tagayaa sidaa in nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan u mahadcelinayaa Kamaal Axmed Cali.